ayaan TV-gan Royal TV oo nagu soo boqday xarunta naafada gobolka Togdheer mahad balaaran inuu ciidan boqorna soo boqday maanta ururka waxaan ku soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan waxyaabaha ururka loo aasaasay Togdheer Handicap Organization ururkan magaciisa la yiraahdo Togdheer Handicap Organization iyo bahaya loo aasaasay wax ka taabto ururkan waxa loo aasaasay markaan aragnay dhibaatooyin ka jirta gobolka Togdheer iyo naafada si kala daadsan tahay ayaan aasaasnay ururkan la yiraahdo Togdheer Handicap Organization ururkan oo ay ku midoobeen dad badan oo naafa dhamaan wixii joogta gobolka Togdheer ee naafada day tahay ndooleyaasha iyo haday tahay kuwan jirka ka naafada iyo haday tahay kuwa dhagaalaba waxay ku midoobeen ururkan la yiraahdo Togdheer Handicap Organization ururkan wuxuu qabtaa waxyaabo badan oo dadka naafada markaa uu fududeeyay waxyaabo fududeeyay waxa kamid ah magaranaysa inuu sameeyo wacyigelin fara badan oo dadkii uu soo jiito dadka naafada uu dhiirigelin u sameeyo waxa kale oo kamid ah inuu au kawl qabto wixii Allah wixii dadka naafada ka cabanayaan waxyaabo ururka loo aasaasay waxa kamid ah waxa kamid ah inuu sameeyay magaranaysa wacyigelin badan oo ka sameeyay gobolada iyo xaafadaha kala badan ee magaalada ka kooban tahay waxa kale oo sameeyay fikir badan buu sameeyay dadkii naafada uu sameeyay oo si ay inay wax shaqeystaan oo wax qabsadaan magaranaysa aanay sameyn aanay guriyo jiifinays dhigan ay sameeyaan inay dadkii la mid noqdaan bulshadii ka mid noqdaan ayaa ururkan loo aasaasay marka hore marka laakiin iminka wuxuu ururku meel fiican ay maraya aasay ilaa iminka tutastediinkana si fiican buu shaqeeyaa waxaan halka maanta ku soo jeedinay baahaya ururku u baahan yahay ururku wuxuu u baahan yahay ma laha taageero badan oo ka helayo xagga gobolka ma laha taageero badan oo gobolka helo waxaan soo ugu codsanaa dawladda siiba maamulka gobolka Togdheer in la shaqeeyaan ururkan Togdheer Handicap Organization oo ururka u shaqeeya bulshada ugu jilicsan ee gobolka Togdheer ku nool waxaan kala baaqo dirinay hay'adaha caalamiga waxaan kala baaqo dirinay bulshooyinka Soomaaliland qurba joogta gudiga dibadba in ururkan Togdheer Handicap Organization si fiican ula shaqeeyaan waayo waxa ururkan u adeegaa bulshooyinka ugu jilicsan ee magaranaysa inta bulshada kamidka kuwaas oo ah kuwa nacagaala kuwa gacmaala iyo kuwa dhagaala iyo kuwa indhoolaba marka kulli waxa jira dad baahiyo badan oo ka jira xaafadaha koonayaashooda waxa aragnay guriga ku nool shan qof oo curyaamina oo magaranaysa u baahan yihiin hooy ay seexan aan lahayn magaranaysa meel ay wax uga soo baxaan oo qotul darro uga soo baxo dadkaasi waxay ku nool yihiin meelaha ay dhibiyada ku nool yihiin ee magaranaysa qorxintigu isugu tago hay'adu dhinac bay ka dhaafaan waxay sameeyaan way imika xilligan joogno waxa moodaa hay'aduhu inay u shaqeeyaan dadka cagaa qabo magaranaysa ee deeriyan karayo oo dadkii jilicsanaa dhinac ka dhaafeen